wasiirka warfaafinta ee dalka Lubnaan George Qardaaxi ayaa shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay inuu iska casilo xilka haddii ay jiraan damaanado qaadaya in dalalka khaliijku ay bedelaan mowqifkooda ku wajahan wadankiisa Lubnaan waxana uu yiri ضمانات اللي انا قلت لغبطة البطريرك انا حاضر انا لست بدي اقول شغلي بس ما زي سالنا انا مش متمسك بمنصب وزاري weli ma hayo damaanadaha aan u baahanahay laakiin haddii ay yimaadaan diyaar ayaan u ahay inaan xilkani ka dego ma sii hayn doono jagada wasiirnimada Qardaaxi ayaan cadaynin nooca damaanadaha uu raadinayo balse waxa loo malaynayaa inay dib u dhac ku yihiin tallaabooyinka diblomaasiyadeed iyo cadaadiska Sacuudiga iyo xulafadiisu ay ku hayaan dalka Lubnaan iyagoo dalbanaya in wasiirkani jagada laga caydiyo xiriirka u dhaxeeya wadamada khaliijka iyo wadanka Lubnaan ayaa xumaaday kadib markii uu Qardaaxi dhaleeceeyay faragelinta military ee Sacuudigu uu hogaaminayo ee dalka Yemen kadib markii uu bixiyay waraysi laga qaaday xilli ka horeysay intii aan loo magacaabin jagada wasiirka ee uu haatan hayo balse ra'iisul wasaaraha Lubnaan ayaa xilligaasi sheegay in wasiirka aanay xukuumaddiisu la qabin hadallada uu yiri hay'adda wadamada khaliijka ee kala Sacuudiga Kuwait Bahrain iyo Imaaraadka Carabta ayaa aad uga cadhooday hadallada wasiirku uu xilligaasi yiri waxaana ay u yeedheen safiiradii ka joogay magaalada Beirut ee caasimadda Lubnaan dhinaca kale dawladda Lubnaan ayaa raadinaysa inay wada hadal la gasho boqortooyada Sacuudiga inkastoo ay jirto xiisadani cusubi marka laga yimaado inay u yeedheen safiiradooda Saudi Arabia waxa ay mamnuucday waxyaalaha ka yimaada dalka Lubnaan ee soo gali jiray Sacuudiga waxana ay codsadeen in ergeyga Lubnaan uu ka baxo boqortooyada Sacuudiga ila wareedyo dhinaca ammaanka oo lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale wakaalada wararka AFP Arbacadii u sheegay in Kuwait ay xadidayso tirada fiisayaasha ay helaan muwaadiniinta Lubnaan taasi oo ka dhalatay ismaandhaafka ka dhaxeeya labadani wadan ismarwaagan haatan wadamada khaliijka iyo Lubnaan ayaa waxa uu halis ku yahay wadanka Lubnaan oo la daaladhacaya dhibaatooyin amni iyo kuwa dhaqaale darro oo soo wajahay muddooyinkii u dambeeyay hay'adda dawladda Saudi Arabia ayaa waxa ay ku doodaysaa in hadalkii uu jeediyay wasiir Qardaaxi aanay ahayn fikrad isaga keligii ku kooban balse waxa ay sheegeen inay ka dambeeyaan dhaqdhaqaaqa Shiicada ee loo yaqaan Hezbollah ee ka jira dalka Lubnaan wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa sidoo kale bishan sheegay in awoodda ururka Hezbollah ee dalka Lubnaan ay aad u sii kordhayso iyadoo si weyn u saameynaysa siyaasadda gudaha ee dalkaasi hase yeeshee waxa xusid mudan in wadanka Yemen ay hadheeyeen rabshado iyo xasilooni darro tan iyo sanadkii 2014 markaasi oo falaagada Xuutiyiinta ee xulafada la Iiraan ay qabsadeen inta badan dalkaasi oo ay ku jirto caasimadda Sanca taasina ay keentay inay gudaha Yemen kula dagaalamaan xulafada uu hogaaminayo Sacuudiga kuwaasi oo ka soo horjeestay Xuutiyiinta